intuu cadowga doolka caradeenna jooge ceelkii shilaabiyo caadiyo wardheer galo caro iyo intaaciil cisho qurama seexdo macalool fayoobiye weli waan cartamayaa markaan calanka jawxo u qootomina ciide loo wada ciyaaraan caafimaadi doonaa waa cadow gumaysigu ciribtaada gooyo haddaan layska celinayn caafimaadi mayne markaan calanka jawxo ku qootomino ciide loo wada ciyaaraan caafimaadi doonaa cisho weliba meeshay soo caga dhigtaan baan iska caabinaayo oon ka cadgoosanaynaa aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum salaamullaahi calaykum dhegaystayaal meel kastoo aad caalamka ka joogtaan ku soo dhowaada khudbadii gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya uu ka jeediyay soddon guuradii ka soo wareegatay aasaaska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya mudanayaal iyo marwooyin anigoo ku hadlahaya magacayga iyo magaca ururka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya munaasabadan soddon guuradii aasaaska ururka waxaan ugu horeyn Ilaahay uga baryayaa inuu ka aqbalo shuhadadii geesiyiinta ahaa ee naftooda qaaliga ahayd u hibeeyay in shacabka Ogaadenya ka xoroobaan gumaysiga Itoobiya sidoo kale dadkii ay dhibaatadu ka soo gaadhay xoreynta dalka inuu eebba ka abaalmariyo maxaabiista gardarrada iyo dulmiga lagu xidhayna uu ka soo daayo xabsiyada gumaysiga Itoobiya waxaan iyana eebba uga baryay inuu naxariis iyo dambi dhaaf siiyo dhammaan dadkii ku geeriyooday iyagoo halganka garab taagan munaasabadan qaaliga waxaan salaan iyo qadarin halkan uga dirayaa shacabka Soomaalida Ogaadenya ee sida geesinimada ay isu garab taagay muddadii 30 sano ahayd ee halganka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ay soo hogaaminaysay shacabka adkaysiga badan ee si uu halganka u guuleysto ku bixiyay wax kasta oo qaali waxaan leeyahay hambaliyo iyo guul iyo gobonimo idinkaana ka libheli Ilaahay idinkii cadowga garashada daranna waxaan sidoo kale salaan iyo hambalyo halkan uga dirayaa naftoodayaasha ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ee geesiyiinta ay jiido hore halganka kaga jira run ahaantiina ka adkaaday gumaysiga macangaga Itoobiya waxaan iyana hambalyo u gudbinayaa xubnaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya ee mintidka ee gumaysiga adduunka ku ciriiriyay kuna riday khalkhalka siyaasiga mudanayaal iyo marwooyin ururkeena oo 30 jirsaday wuxuu soo maray oo ka soo gudbay marxalada kala duwan oo mid walba hawlaheeda iyo astaamaheeda gaarka lahayd hawlihii badnaa ee ururku soo qabtay muddadii 30 sano ahayd halkan laguma soo koobi karo waxaan se isku dayay inaan xuso hadba intii suuragal oo kooban jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya markii duruufihii jiray ay ku qasabtay inay halgan shacbigu buddhiga u yahay ay bilowda aad ayay u liidatay awoodeeda dhinac tiro iyo dhinac tayaba dadweynuhu diyaar uma ahayn halganka loo baahan yahay oo ay hubaal ahayd inuu noqonayo mid aad u daba dheeraada waxay ahayd marxalad dawladii Soomaaliyeed burbur qarka u saaran tahay dagaal sokeeyana uu ku holcayo Soomaalidii xorta ahayd duruufaha halganka waqtigaasi ku xeeraa waxay ahaayeen kuwa aad u qalafsan oo ay adag tahay in halgan hubaysan laga fuliyo geeska Afrika tusaale ahaan xilligan halganku waxa uu ku soo beegmay waqti adduun weynuhu iska dhagatirayo in gumaysiga Afrika uu ka jiro oo ay adag tahay inaad ka dhaadhiciso adduun weynaha in Itoobiya ay gumaysato tahay iyadoo ay taariikhdu cadaynayso inay ka qayb gashay qaybsiga Yurub ee Afrika ay qaybsatay taasi waxay maqraati u tahay laba wajiilanimada caalamka ee gumaysiga Itoobiya iyo dulmiga ay shacabka Ogaadenya ku hayso dhagahana laga furaystay xilligani waxa uu ku soo aaday waqti awoodihii adduunku hal meel isugu urureen oo cidii ayna wadanin la caburinayo isla markaana shabakada argagixisada la saarayo quwadihii iska soo horjeedayna ee fursadaha laga heli jirayna aysan jirin waa xilli ay burburtay dawladii Soomaaliya ee saldhigga dabiiciga u ahaan lahayd ama u ahaan jirtay halgan kasto oo xoreynta dalka Ogaadenya isu taaga kadibna qaar ka mid ah shacabkii Soomaaliyeed iyo dagaal ogayaashii oo ay Itoobiya u adeegsatay la dagaalanka iyo caburinta Soomaalida Ogaadenya
halganku wuxuu galay waqti ay goobta dagaalka jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya ku galeeysatay oo ay uradii kale afka ka sheegan jiray gobonimada cadowga isu dhiibeen inkastoo qoomiyadaha kala gedisan ee Itoobiya ay dagaal kula jiraan taliska wayaanaha ee Addis Ababa haddana waxaa taageero dhinacyo badan siiya dalalka reer galbeedka dabeecadda dalka Ogaadenya oo aan juqraafi ahaan adduun weynaha meel xad ah kala lahayn gumaysiga Itoobiya iyo Soomaaliya oo burburtay mooyee waxay adkaysay cunaqabataynta joogtada ah ee cadowga Itoobiya shacabka Soomaalida Ogaadenya uu ku hayo arrimaha iyo kuwa kale badan oo wada jira ayuu shacabka Ogaadenya go'aansaday halganka gobonimo doonka ee xornimadiisa iyo xaqiisa ay ka talinta uu ku raadiyo duruufaha jiray awoodda ururka markii la aasaasay kadib muddo 6 sanadood ayuu hab qarsoodi ah hawsha ku waday muddadaasi hawsha ugu weyneed ee ururku qabanayay waxay ahayd diyaarinta dukumentigii ururka abuuridda xubnihii ururka saldhigga iyo hogaaminta u noqon lahaa iyo in shacabka la kasbado loona diyaariyo halgan dheer marxaladii qarsoodigu waxay dhamaatay markii TPLF-tu xukunka Itoobiya la wareegtay Ogaadenya ay qabsatay maamul hoosaad ku meel gaar ahna dalka laga dhisay marxaladan oo jabhada TPLF xukunku uu ku cusbaa dastuurkeeda diyaarintiisana ay ku jireen wuxuu gumaysigu dalka ku maamulayay charter gumeel gaar oo ay qodobadiisu kamid ahaayeen in qoomiyadii ku qanci weyda maamulka jira ay xaq u leeyihiin in afti laga qaado qodobkaasi ururka iyo bulshada reer Ogaadenya yiddiilo badan ayuu galiyay wayna soo dhaweeyeen xilligaas ururku wuxuu bilaabay inuu unugyadiisa dalka gudihiisa ku baahiyo bulshadana la qabatiyo ujeedada ururka gobonimo doonka iyo in halgan gobonimo doona oo shacabku leeyahay la isu diyaariyo iyadoo shacabku uu mar walba codsanayay inuu isagu aayihiisa ka tashado maamulkii TPLF markuu dareenka bulshada Ogaadenya ogaaday ra'iisul wasaarihii gumaysigu Malla Zanaawi waxa uu qabanqaabiyay shirar waaweyn oo isdaba jooga oo lagu kala qabtay Harar Goday iyo Qabri Dahar oo ay midkiiba ka soo qayb galeen ugu yaraan dad lagu qiyaasay ilaa 500 oo ruux oo ka kooban odayaal dhaqameed iyo madaxdii dalka dhageysto shirarkaasi dhammaan isku hal ujeeda ayay Itoobiya ka lahayd oo in shacabka Ogaadenya ka hadho xaqiisa ay ka tashiga Itoobiya waxay shirarkaasi ka sheegeen in shacabka Soomaalida Ogaadenya uu yahay dad Itoobiyaan oo xuquuqdoodana dastuurka ay ku helayaan abaabulkana la joojiyo Itoobiyaanimadana la aqoonsado hogaamiyaasha bulshada Soomaalida Ogaadenya doodoodu waxay ahayd inay Itoobiya aynan ahayn isku dhaqan af taariikhna ayna wadaagin waxayna cadeeyeen inayna wada noolaan karin waxay codsadeen ay ka tashiyeen dadka afti xor ah laga qaado shirarkaasi waxay ku dhamaadeen is-afgaran waa iyo in laba muuqif oo kala fog la qaato arrintaasi ay ka tashiga oo muhiim aad ugu ahayd shacabka Ogaadenya waxa si buuxda cod isugu raacay baarlamaanka deegaanka Soomaalida Ogaadenya oo shacabku soo doortay iyo in shacabka Soomaalida Ogaadenya loo ogolaado inuu aayihiisa ka tashado afti madax bannaan oo xor ahna laga qaado arrimahaas ay isku wada raaceen baarlamaanka hogaamiyaashii bulshada iyo ururkii gobonimo doonka ahaa TPLF waxay ku abuurtay walwalaad badan wuxuuna malas xukuumaddiisa ku yiri kadib markii uu warbixin ka siiyay dareenkii bulshada reer Ogaadenya wuxuu kala kulmay shirarkii kala duwanaa ee hogaamiyaasha bulshada u qabtay iyo go'aankii baarlamaanka maanta arrimaha shacabka Ogaadenya waxay taagan yihiin inaan laba talaabo midba midda kale ay ka khadhaadhahay inaan midkood qaadano inaan shacabka Ogaadenya sidoo codsanayo u yeelo oo aan afti ka qaadno halkaasna ay ku go'aan iyo inaan ku talagalo inaan dadkaasi gumaadno oo aan baabiino dhageysto markii labadaasi arrimood la qiimeeyay waxa la qaatay qodobkii labaad ee ahaa in dadka la gumaado talaabadii koobaad ee dawladda gumaysigu ku dhaqaaqday waxay noqotay sidan soo socota in madaxdii gobolada iyo degmooyinka oday dhaqameedyadii iyo culamaadiinkii la ugaarsado oo qaarkood la laayo in xubno badan oo baarlamaanka kamid ah la xirxiro in madaxweynihii dalka Ogaadenya iyo ku-xigeenkiisii xilka laga qaado labadoodana la xidho kadibna waxa loo dhaqaaqay sidii loo soo qaban lahaa gudoomiyaha jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya iyo madaxdii kale ee ururka oo badbaadintii difaacooda ay ku shahiideen dad reer Ogaadenya oo tiradoodu 100 ruux ay kor u dhaafayso
markii ururku uu ogaaday tallaabooyinka gumaysigu uu qaaday iyo qorshaha ka dambeeya ee ay damacsan tahay, waxaa madaxdii jabhadu go'aamisay in la baxo hubkana la qaato si xaqa maqan ee ay ka tashiga loo difaaco. halkaasi waxaa kaaga muuqata in jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya iyadu ayna doonaynin in halgan hubaysan xaqooda ay ku raadsadaan haddii aan lagu qasbin. shacabka Ogaadenya oo ay jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya hogaaminayso iyo baarlamaanka deegaanka waxay codsadeen welina codsanayaan in shacabka Soomaalida Ogaadenya loo ogolaado xaqooda ayna iyagu ayahooda ka tashadaan aftina laga qaado. aragtida bulshada madaxda siyaasadda Ogaadenya marna ma ayna soo qaadin in halgan hubaysan oo dhiig badan ku daato xaqooda ay ku raadiyaan. madaxda jabhaduna markaasi ma doonaynin diyaarna uma ahayn xaq ciidan iyo xaq abaabul inay halgan hubaysan ku bilaabaan. hase ahaatee siyaasadii gumaysigu markay noqotay in madaxdii ururka la laayo dadweynihiina la xasuuqo, tallaabooyinka ugu horreeyay ee ay qaadeen waxa ay qabatay jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya in hubka la qaado, gaar ahaan markii isku daygii ugu dambeeyay ee baarlamaanku uu codeeyay ee ahaa inuu xaqooda ay ka tashiga ku siiyo hab nabadeed, cadowguna uu diiday. go'aankaasi waxa uu ka mid ah go'aamada taariikhiga ee madaxda jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya ay qaadatay. waxay ahayd marxalad aad u adag, dhinaca dhaqaale, mid qalab iyo mid ciidanba aad ayay u yaraayeen markii halganka hubaysan la qaaday. waxaa lagu talagalay halkudhigii jabhada ee ahaa mintid midnimo isku tashi Allahu Akbar. iyadoo ay xaaladdu sidaa tahay, haddana go'aankii jabhada waa loo wada hoggaansamay oo xubnihii si dhaqso ah ayay xafiisyadii u wada xidheen, magaalooyinkiina uga wada baxeen. waxaa bilaabatay xaalad dhab oo aad uga duwan ugana culus midii hore. kulamadii ugu horreeyay ee hoggaanka jabhada ee duurka u soo baxay ay yeeshaan waxaa la go'aamiyey dhisad ciidan oo wax iska caabin kara abaabulka shacabka oo la dardargeliyo wacyigelinta siyaasadda ee xubnaha iyo bulshada oo kor loo qaado. socodsiinta howlaha halganka isku tashigii saldhigga uu ahaa ururkana lagu wado ee bana la tala saarto. isla markiiba waxaa lagu dhaqaaqay sidii loo fulin lahaa go'aamada hawsha socodsiinteeda saldhigga looga dhigay. waxaa isku mar laga bilaabay abaabulkii bulshada, dhismihii ciidamada iyo abuuristii dhaqaalihii howlaha jabhada lagu wadi lahaa. waxaa la bilaabay in meel kasta oo bulshada reer Ogaadenya ay ku dhaqan tahay laga dhiso unugyo iyo jaaliyada qayb weyn ka qaata halganka iyo baraarujinta shacabka, lana socodsiiyo qadiyada caalamka. dhagaysto waxaa la abuuray dugsiyo tababar ciidan. tallaabooyinkaasi waxay muujiyeen muddo gaaban natiijo dhaxalgal ah oo noqotay halgan si uu uga hortago halganka hubaysan. waxa uu gumaysigu bilaabay handadaad iyo inuu oday dhaqameedyadii mar kala shiriyo, isagoo handadaya in oday kasta dhalinyarada reerkooda ah uu ka soo saaro ciidanka jabhada, haddii kale in tallaabo laga qaadi doono. markuu gumaysigu ogaaday inuu arrintan ku fashilmay ayuu qorsheeyey inuu madaxda jabhada ee gudaha wadahadal la furo, isagoo hawsha qabanqaabadeeda u adeegsaday hay-adihii dawliga ahaa ee dalka joogay. qaar ka mid ahaa arrintaasi gumaysigu laba ujeedo ayuu ka lahaa: inuu madaxda jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya ku qanciyo in dagaalka hubaysan la joojiyo, siyaasadda TPLF-na loo hoggaansamo, xaqa ay ka tashigana ay qoomiyadaha kale la mid yihiin. in hadday qancintaasi socon weydo madaxda shirka ka soo qayb gashay la wada laayo, kadibna dagaal adag oo naxariis la'aan ah lagu qaado xubnaha jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya iyo bulshada Soomaalida Ogaadenya. sida ayuuna u fulay qodobka koobaad. markuu gumaysigu u suurtageli waayay ayuu wafdigii wada hadalka ka soo qayb galay laayay, taasoo markhaati ka noqotay cahdi darrada taliska Addis Ababa ka taliya. hase yeeshee waxaa Ilaahay mahadiya in tallaabooyinkaasi argagixisada ee gumaysigu qaaday inuu waxba u faa'iideynin, howlihii halgankana ay dardar bilaabeen. xilligan wuxuu ahaa midkii ugu adkaa uguna khatarta badnaa xilliyaduu ururku soo maray. marka la fiiriyo duruufuhu ururku markaasi ku sugnaa iyo siduu gumaysigu ugu talagalay inuu kacdoonka shacabka Ogaadenya ku damiyo. dhibaatada iyo culayska oo sidaa u jira ayuu shirweynihii labaad ee jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya 1998 ka qabsoomay, waxaana halkaa laga sii waday dhismihii hay-adaha ururka, ciidanka uu dagaalkii Dhuumaalisiga halkiisii
halkiisii kasii wada iyo shacabka dalka gudihiisa iyo dibadiisa oo kaalin muuqata ka qaatay halganka shacabka Soomaalida Ogaadeenaya xidhiidhka jabhadda ee gudaha iyo dibadda oo markaas intii ka dambeysay si fiican u bilowday waxaa dibadda iyo gudahaba si siman uga wada socday dhamaystirka dhismihii hay'adaha kala duwan ee jabhadda iyo dhaqaajinta howlahoodii sida shirweynihii jabhadda kala fadhigii golaha dhexe kulamadii guddiga fulinta hogaamadii iyo howlahoodii fulinta maamuladii kala duwanaa oo howlahoodii si caadi ah u wada socday waxa hay'adihii jabhadda si caadi ah loo wada gaarsiiyay qorshe howleedkii iyo waajibka hay'adaha kala duwan ee ay ku shaqayn lahaayeen bulshada Soomaalida Ogaadeenaya markaasi wixii ka dambeeyay howlaha halganka si qorshaysan oo caadi ayay gudi iyo dibadba uga taabagaleen ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya taariikhda wixii ka dambeeyay si dhaqso ah ayuu u kobcay howlihiisina waxay noqdeen kuwa taabagala wuxuuna isu diyaariyay inuu ka gudbo marxaladii dagaalka dhuumaalaysiga ahayd una gudbo marxaladii dagaalka caadiga ahayd taasi waxay muujinaysaa inuu tiro iyo tayaba ka hormaray oo cadowgii meel uu ku gabado waayay markii jabhadii xoogaysatay oo marxaladii labaad ee halganka la galay ayuu gumaysigu wuxuu dejiyay qorshe laba dhinac oo dibad iyo gudaba u qaybsana qorshaha gudaha wuxuu ahaa dagaal laba ciidan oo isu dhigma oo ka dhaxeeya oo weerar iyo weerar celisa oo magaalooyinka waaweyn iyo tuulooyinka waaweyn ka wada socda marxaladaasi oo ilaa hadda socoto gumaysigu waxa uu kala kulmay dagaalo badan oo quusina oo ku qancay inuusan jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya dagaal military waxba kaga qaadi karin dagaaladaasi ciidan waxa garab socday waxaa kamid ahaa qorshaha gumaadka ee gumaysigu u abuuray ciidan lagu magacaabo booliska gaarka ah ee loo yaqaan hawaarinta iyo kuwii ajagudhay ee xarootay oo dhinaca jaajuusnimada loo adeegsaday ujeedada loo sameeyay kooxahan waxay ahayd inay shacabka birmageydada laayaan ciidamada cadowgana nasiyaan oo dhowr u noqdaan waxaa kaloo siyaasadda gumaadka shacabka kamid ahayd cunaqabataynta shacabka laga xidhay dhinac kaste si gaajo loogu baabi'iyo ciidanka hawaarinta ma ahayn kii ugu horeeyay ee noociisa ee gumaysigu bulshadu ku dhex abuuro si jabhadda loola dagaalamo kuwa isla noocan oo kala oo magacyo kala duwan leh ayaa ka horeeyay ciidamada noocan ee hadba gumaysigu bulshada dhexdeeda ka abuurayo dhibaato sidoo u gaarsiiyo shacabka Soomaalida Ogaadeenaya kadib markii uu bulshada falal argagixisanimo oo kala duwan kula dhaqmay gumaysiga isagoo ciidankaasi adeegsanaya ayuu bulshadii ula dhaqmay hab ka baxsan bini'aadamnimada waxa ciidankan tababar khaas loo siiyay sidii ay bulshada u tabargoyn lahaayeen hantidoodana u dhici lahaayeen wuxuu ciidankan dad shacab oo aan waxba galabsanin ka buuxiyay jeelasha faraha badan ee ku yaala wadanka Ogaadeenaya waxaana jeelkaasi ugu caansan jeelka loo yaqaan jeel Ogaadeen sidoo kale ciidankani waxay faraxumeyn bahsan u geysteen gabdhaha Soomaalida Ogaadeenaya ee ku dhaqan wadanka yeeshee waxa isweydiin leh in ciidankan hawaarinta ee sida gaarka loo diyaariyay ee tirada badnaa qalab fiican iyo gaadiid boobayaal saaran yihiin lagu hubeeyay gumaysiguna ugu talagalay inay bulshada xasuuqaan ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya jabiyaan ciidamada wayaanahana nasiyaan xaalkoodii hadda halkee buu ku dambeeyay gumaysiga qorshihiisu sidaasi aan soo sheegay ayuu ahaa hase ahaatee ciidankaasi xaaladiisu waxa ay ku dambeysay in markii goobihii dagaalka la isku helay ciidamada jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya oo ciil gaara u qaba iyo sida ay hawaarintu dadweynuhu ula dhaqmeen darteed waxa lagu jabiyay dhammaan dagaaladii ay isugu hor yimaadeen jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya waxaana lagu gumaaday howlgalladaasi oo aad loogu naafeeyay kadibna in badan oo ciidankaasi kamid ahayd hubkoodii ayay la baxsadeen ciidamada hawaarinta hadda xaalkoodu waxay maraysaa heer ayna tiro iyo tayo ahaanba ayna hor istaagi karin jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya gumaysigu markuu qorshayaal iyo xeelado kala duwan muddadii uu halgan ku socday uu ku tijaabiyay dhammaantoodna uu ku guuldareystay wuxuu mar labaad soo cusboonaysiiyay qorshihii wadahadalka isagoo ogolaaday shardigii jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeenaya ay soo jeedisay ee ahaa garab saddexaad oo dawli ah
oo la isku halayn karo wada hadalkana lagu qabto. arrintaasi habkii loo qaban qaabiyay iyo sidii ay hawshu ku bilaabatay waxay ahaayeen hab dawli ah oo nidaamka waafaqsan. markuu shirku bilowday wareegii hore kadib Itoobiya waxay ula muuqatay inay ku guuldareysanayaan agartana laga helayo caalamka hortiisa. waxay markiiba bilaabeen in wada hadalka caqaladeeyaan oo shuruudo aan meesha ku jirin ay keenaan. waxay noqotay in wada hadalkii iyagu codsadeen haddana burburiyaan, taasoo macnaheedu yahay dhibkii wada hadalka lagu xallin lahaa inuu weli sii socdo. ase ahaatee Itoobiya qalbiga waysiin la yihiin inay ogolaadaan natiijada ka soo horeysa oo ah inaan la qarin karin xaqa shacabka Soomaalida Ogaadenya haddii si dhab loo xisaabtamo. waxaa xasuus mudan in wada hadalkii 1998 markuu fashilmay xubnihii wada hadalka ka qaybgeli lahaa uu gumaysigu laayay. midkana markii ay burburiyeen xubnihii wada hadalka ka qaybgalay gumaysigu inay afduubeen. qorshihii faraha badnaa ee gumaysiga soo maleegayay ee lagu talagalay in halganka lagu jabiyo dhammaantood jabhadu si ku haboon ayay u fashilisay. waxayna u muuqataa in xeeladihii gumaysiga gudi iyo dibadba ay ku soo urureen sida tan in Ogaadeen iyo kuwa kaloo badan dadka lagu ciqaabo in xubnaha jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya ee dalalka dariska qaxootiga ku alalaayo ama la afduubo. xeelado iyo qorshayaal kuwii hore ka bedelan oo hadda gumaysigu uu ku soo hawlgali doono. waxaase hubaala in la fashilin doono qorshe kasta oo gumaysigu la yimaado. mudanayaal iyo marwooyin halgan kasta oo hubaysan oo guuleystaa wuxuu soo maraa marxalado kala duwan oo ay ugu horeyso marxaladda dhisidda iyo nidaaminta halganka oo ay la socoto marxaladda dagaalka dhumaalaysiga. marxaladaasi oo muddada ay soconayso ay ku xidhan tahay hadba ururka dadaalkiisa iyo awoodiisa inta ay leeg tahay. marxaladaasi jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya si guul leh ayay waqti ugu haboon kaga soo gudubtay. jabhada iyo halgankay hogaaminayso oo marxaladii hore si fiican uga soo gudubtay tii saddexaadna cagta saartay. waxaan howlwadeenada jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya guud ahaan bulshada reer Ogaadenya ee gobonimada jecel ugu baaqaya in si wada jir looga wada howlgalo sidii goolka kama dambaysta loo dhalin lahaa. wax kasta oo qaali ahna loogu huri lahaa, wax kasta oo dib u dhac oo howlaha halganka u keeni karana looga ilaaliyo. mudanayaal iyo marwooyin warbixintan ay waayo aragnimadu hagayso kadib waxaan jecelahay inaan halkan ku soo dhameeyo inay jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya tahay urur dhismihiisa iyo dukumiintigiisu dhammaystiran yihiin, urur yaqaana himiladiisa iyo yoolka uu halgami, urur anshaxiisa iyo midnimadiisu sarreyso, urur isku kalsoon, urur xubnihiisu wada shaqayn iyo iskaashi buuxda hawsha halganka ku wadaan, urur isku tashi iyo xilqaan gaar ah howlaha halganka ee adag ku meel mariya. ammaan aad u ballaaran oo kaliya laba ayaan ururka jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya iyo xubnihiisa xilalka iyo howlaha kala duwan u haya u soo gudbinaya si aaminaada iyo xilkasnimada ee ay howlaha halganka ummadda ugu hayaan. haddii ayna taasi jirin duruufaha adag ee aan ka soo gudubnay lagama soo gudbeen. hasaatee mar haddaynan weli yoolkii gobonimada dhalinin waa in hawsha halganka la sii dardargeliyaa sidii hore iyo si ka fiicana loo wadaa. waa inaan howlaha halganka mar walba aragti kacaana ku wadnaa. waa inaan midnimadana ku dhaqanaa, xeerka iyo nidaamka ururkana joogtaynaa. isku tashiga iyo kor u qaadida wacyiga halganka waa inaan sii xoojinaa. iskaashiga ururada iyo bulshada dhexdeeda ah waa inaan adkaynaa. mar walba waa inaan howlaheena dib u habaynaa iyo horumarinta joogtada ah oo aan ku wadno ururka jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya. waa inaan xoojinaa tiirarka asaasiga ee halganka, abaabulka guud ee jabhada wadaniga xoreynta Ogaadenya, bulshada, siyaasiyiinta iyo warbaahinta. waa inaan mar walba horumarinaa meelmarinta aragtida dhaqaalaha isku tashiga ku salaysan. waa in la xoojiyaa dhismaha hay-adaha jabhada iyo ururada bulshada. waa inay noqdaan ahaadaana kuwa u qalma hadba howlaha la fulinayo. qorshe howleedka iyo habka fulintiisa, kormeerka habka howluhu u fulayaan waa in la joogteeyaa. wada tashiga, iskaashiga, ogolaanshaha go'aanka inta badan gaaraya howlaha lagu wada fulinayo. ugu dambeyntii waxaan adduunweynaha nabadda iyo xornimada jecel u jeedinayaa
in dhibaatada shacabka Soomaalida Ogaadenya gumaysiga Itoobiya ku hayo si degdeg wax looga qabto. Runtii dhibaatada gumaysiga shacabka Ogaadenya uu ku hayo waxay ka mid tahay dhibaatooyinka ugu foosho xun ee adduunka maanta ka jira. Waxaase nasiib darro in adduunyuhu dhibaatada intaasi leeg si buuxda indhaha iyo dhagahaba uga furaystay. isla barahaantana waxaa mar kale adduunyuhu la socotiinayna inaysan shacabka Ogaadenya iyo jabhadda gobonimo doonka ee ONLF midkoodna ogolaan doonin in khayraadka dalka Ogaadenya si sharci darro loo soo saaro. inta qadiyada Ogaadenya looga helayo xal caadil oo shacbigu ku raali yahay. munaasabadan anigu ka faa'iideysanaya waxaan cadeynaynaa in jabhadda ONLF diyaar u tahay in wada hadalkii Itoobiya burbursi dib loo soo celiyo si nabadda geeska Afrika loo gaaro, dhiigga daadanayana loo joojiyo. shucuubta geeska Afrikana loo horseedo xornimo, nabad, cadaalad, sinaan iyo iskaashi buuxda. mar labaad waxaan adduunka ugu baaqayaa inuu waajibkiisa guto. guul gobonimo mintide iskaashi. Allahu akbar. dhageystayaal, taasi waxay ahayd khudbadii gudoomiyaha jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya uu ka jeediyay sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegatay aasaaska jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadenya. waxaana idin soo jeedinayay anigoo Axmed Cabdullaahi.